السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذن سلام أصحاب رمضان كريم، رمضان مبارك. كسو دواada channelkeena maanta iyo video cusub. fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe noo saar, gambaleelka oo ku dhigo like noo saar videoga. maasha allah, maanta iyo video cusub. maanta videoga axbaabi aan idiin wadno wuxuu ku saabsan yahay caqabadaha aan kula kulmo videoyada markaan sameynayo, iyo sida aan videoyada usoo duubo oo idinku soo gudbiyo video aad u qurux badan oo aad u muuqaal fiican, sida idinku soo gudbiyo iyo dhibaatooyinka aan ka maro. maxaa yeelay meesha aan joogo ayaa ah meel aan laga isticmaalin mobilada kaamirada leh. maxaa dhahay sida kuwa waaweyn iyo sidoo kale kaamirooyinka lagama isticmaalo meeshan, waa ka mamnuuc. sidaasay tahayna dadkayga ayaan waxaan jeclahay inaan usoo gudbiyo video qurux badan oo tayo leh oo muuqaalkiisa sareeyo, liano waxaan dhahay aad ayaad iigu weyntihiin, waxaad tihiin asxaabtayda, waxaad tihiin walaalahayga. wax kastoo anaka wax noo taraayo idinkan waxaan jecelnahay inay idinkan wax nii taraan. sidaas darteed waxaan raadinaa meel oo aan ku badbaadno oo kaamirooyinkeena iyo mobiladana ay ku badbaadaan. markasta waxaan muujinaa taxadir. mar allaala markii oo video aan sameynayno waxaan kala kulanaa muuqaaladeena inaan qarino oo meel qarsan aan la aadno. mar allaale markii aan anoo video sameynayo oo kale, markii qof oo imaado oo guriga dheeraadka markuu imaado kale oo lidhaho aamina aawe camal lidhaho, isla markii waxaa lasoo boodayaa takoor oo naxdin ah. markaas maxaa sameynayaa isla markii waa soo boodaya. markaan soo boodo oo videogii meesha ayuu ku stop gareysmaya. isla markii waxaan ku boodaya kaameradii. kaameradina waxaan isku dayaya inaan damiyo. dhag ayaan siinaya lianahu kaamiradaas haddii ay ii shidan tahay, waxaa laga yaabaa qofkaas inuu yahay qof oo barnaamijkan duubayo qof oo aqoonin inuu yahay laga yaabaa. waxaa laga yaabaa qof oo haduu rabo xataa wuu ku sheegaya qofkaas kaamira wadataa, mobile weyn haystaa, waxaasuu ku leeyahay. bani aadamka ma laisku haleeyo maogtay. marka sidaas darteed markasta feejignaan ayaa sameeyaa dadka banaanka iga imaanayo kale. ilma dhowrto, laakiin marmarka qaar ayaa qof adoo heblaayo kusoo dhihinayo iska soo galaya. sidoo kale guriga markaa kaligaa joogo oo kale, qof ayaa sikadiisa kugu imaanayo, isla markaas ma awoodid inaan kaamirooyinka iyo waxa dhan aad hal mar babaqtiisid. sidaas darteed waxaa arkaysaa qofkii oo oo hadana fahamsaneyn barnaamijkaaga uu ku leeyahay waxaan maxaa waqtiga ugu luminaysaa, waxaan maxaa saan, waxaa sida, waxaa waqtiga waxaan ku sameyn laheedi ma waxyaabo kala gelisid oo kale uu ku leeyahay. markaas waxaa kala kulmaysaa niyad jab aad iyo aad u weyn ayaa kala kulmaysaa. haddana sidaasoo tahay ani niyad jabkaas ma qaato, maxaa yeelay waxaa haystaa maskaxdeyda ayaa dhiirigelin ii ah. maskaxdeyda ayaa wax kasta ka isticmaalaa. alxamdulilah, ilaahay ayaa mahadaas iskale. aniga wallahi qofna wax ma weydiiyo, qofna lama tashto. qofka haddii aad la tashtid wuxuu ku leeyahay maxaa waxaas ka dheefaysaa, maxaa ku falaysaa, hadeer sanad ayuu kuu furan yahay, maxaa ka heshay, ka heshay. anina mustaqbalka ayaa u dadaalaya, ma ogi wax oo hadda ah oo hadda justan oo hadda geeli gala garoorka keen ma ihi ani. marka mustaqbalka ayaan u dadaalaya. marka insha allah mustaqbalkan waxaan ka rajeynayaa iyo allah subxaana watacaala waxaan ka rajeynayaa in uu i gaarsiiyo heerkii aan doonaye iyo higsigeyga. waxaan ka rajeynayaa ilaahay inuu ii dhaliyo. alxamdulilah,
ilaahayna waxaan ka rajeynayaa inuu maxaa lahaye daalka aan daalay sanadka dhan waxaan ka rajeynayaa insha Allah inuu igu bedeli doono wax fiican. wallahi alcadiim markii oo video ay editing gareynaysid maxaa lahaye oo dadka maxaa lahaye bi'ada ah ku neeshahayna ay yihiin bi'a reebaadiye ah ay ku leeyihiin maxaa sameynaysaa waxa maxaa waaye maxaa lahaye laga yaabo xitaa in oo ay ku dhahaan waxaan maxaa ka istiidaysaa maxaa ku falaysaa maxaa lahaye inay ku dhahaan laga yaabaa. marka waxaasoo dhan dulqaad ayaa maxaa lahaye loo baahan yahay inaad u samaysid iyo karti. marka oo aadba korkaba iska saarinba in qof dadkan wax ku dhahooyaan iyo inay ku dhehaynin iyo in oo maxaa lahaye adiga lagu haysto iyo in maxaa lahaye problem kugu yihiin dhanbo inaad iska dhigtid oo dhulka iska saartid oo adigu muhiimadaada ay tahay saana lagu yiri haddaa muhiimadaada aad ka dhigtid bas waa adigu waxa waaye meesha ugu dambeysa taagan tahay. marka insha Allah muhiimadeena waa in maxaa lahaye ka dhiganaa maxaa lahaye fikirkeena iyo qalbigeena.